duulaanka dowladda Ruushku ay ku qaaday dalka Ukraine ayaa galay maalinkii 26aad wali Putin ma hayo natiijo weyn oo uu ku naaloonayo 48 saacadood wax ka badan oo uu filayay in howlgalka lagu soo afjarana waxa uu galay maalintii 26aad lama hayo natiijo wax ku oola laakiin wadanka Ruushku waxa uu wajahay cunaqabataynadii ugu adkaa ee abad lagu soo rogo dhaqaalaha dunida oo dhan ayuu saameyn ku yeeshay sicir bararka xooggan ayay weelaysay duulaanka lagu qaaday Kiev Moscow waxa ay khasaartay bilaayiin dollar duniduna waxa ay ku dhawaatayba inay musalifto waxyaabaha uu ugu badan yahay shidaalka qamadiga ama sarreenka waxa loo yaqaan iyo saliidda ayaa tagay halkii ugu sarreysay duniduna wali waxa ay walwal ka qabtaa halka loo jihaysan doono iyada oo maalinkii 27aad ee duulaanka lagu siisiqayo dirirta dhinacyadu waxa ay si weyn uga socotaa magaalooyin muhiim ah oo ka mid ah Ukraine magaalada Mariupol oo ah goob muhiim ah kuna taal xadka gobolka lagu magacaabo Donetsk oo ka mid ah Ukraine balse Ruushku uu aqoonsatay jamhuuriyad madax bannaan ayaa ka mid ah goobaha duulaanka culus uu ka socdo halkan waxa ay xudun u tahay dhaqaalaha waa magaalo ay ku yaalaan in ka badan 60 warshadood oo birta sameeya waxa ay kaloo magaaladan u sahlaysaa Ruushku inuu isku xiro labada gobol ee uu dhawaan aqoonsaday kana dhigay jamhuuriyadaha madaxa bannaan iyo gobolka uu hore u qabsaday 2014 ee Crimea ee wadanka Ukraine taasi waxa ay qiimo weyn ugu fadhidaa in Ruushku uu heli doono dhul uu kaga gudbo goboladaas imika sida loo qiyaasay xaaladdu waa ay ka adag tahay dadka faaleynaya arrimaha dagaalka ayaa leh marnaba suuragal ma aha in Kiev si fudud loogu durduriyo laakiin caasimaddu wali waxa ay ku jirtaa go'doomin culus oo ay ku hayaan ciidamada wadanka Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu ka farkarayaa qorshe cusub oo uu dagaalka ku wajaho laakiin khubarada military waxa ay reer galbeedka u badan waxa ay tusaale ka bixinayaan in Putin uusan si fudud dagaalkan lugaha ugala bixi doonin dhaqaale ahaan waa ay riiqantay Moscow laakiin dhinaca kale Ukraine ayana waa ay burburtay reer galbeedku waxa ay wali sii wadaan tirabeelka cunaqabataynaha lagu soo rogayo Putin iyo xukuumaddiisa Ukrainiintu waxa ay tabinayaan inay la dagaalami doonaan ilaa qofka ugu dambeeya uu ka nool yahay ciidanka Ruushka ayna isdhiibi doonin waxa ay kaloo sameynayaan inay dhali doonaan dagaalo xooggan oo dhaca kuwaas oo la fili karo in maalmaha soo socda ay dhacaan Moscow waxa ay ku dhawaaqday adeegsiga hubka halista ah gaar ahaanna gantaalo lagu burburiyay dhismayaal dhulka hoostiisa ku jira oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kaydka madaafiicda xukuumadda Kiev madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in haddii ay guuldareystaan wadaxaajoodyada nabdeed ee dalkiisa iyo Russia ay ka macno tahay in uu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka Ankara waxa ay tabinaysaa in Ruushka iyo Ukraine faham hordhaca ay ka gaareen in xabadda la joojiyo laakiin wali lama hayo wax rasmi ah oo ku wajahan arrintan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu socdaal ugu ambabaxayaa Yurub toddobaadkan wuxuu ka qayb galayaa kulanka degdega ee NATO dalalka ku jira G7 iyo isbahaysatada reer Yurub walwalka ugu weyn ee ay qabaan reer galbeedku waa in dagaalku uu sii socdo Kievna aysan awood u lahayn ay isaga sii difaacdo duulaanka kaga imaanaya Moscow xaaladani waxa ay dunida u horseedaysaa bog cusub taasoo aan la aqoonin dhammaadkeedu halka uu aadi doono si weyn ayaana indhaha loogu hayaa falcelimaha waaweyn ee ka dhalan doona dagaalkan xataa haddii uu joogsado waxa abuurmi doona shabakado cusub oo gaar isku sii bahaysta ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda